واشرة يسوي مادين بيش أحمد جراد وكمدا بيلها دجان كبوه هولي بيش وحكى هذا الشيء دلوا جيستي الله ونحريستي فرحان محمد حسن يري وحين تحسيو درين هلدي يغرق جرين مرحوم كاسي لنعك لو حيباق قدرين بيش محمد جراد ويشجعن إن يجود دل كاسي الله يستوى هذا الكهول دجانه وحال كان كهذا لي عقال يوح جراد وحين بيش وجبا إنه وهذا اللي يسوي ماد أنت أنا وهذا اللي حليو وحجرتكن waxay ku baaqeen in wada hadal la isugu yimaado waxayna fariin u direen waxgaradka iyo ismada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn in arrintaasi ay ka shaqeeyaan waxaana kamid ah hadaladoodii lillahi salatu wassalamu ala rasulillah ilaahana waa faa'ida quraanka ay sheekhu noo jeediyay haddana waxaan guud galanaa barnaamijkeeni waxaan halkan ka jeedin ka soo akhrinayaa baaqa waxgaradka beesha Axmed Garaad ujeedo cadayn iyo warbixin in ujeedo warbixin iyo cadeen ku saabsan dilkii xaqdarrada ahaa ee loo geystay marxuum Farxaan Maxamed Xasan Yare ay fuliyeen maamulka Somaliland taas oo ay sameeyeen beesha Bahar Same reer Naaleeye arrintaas oo ahayd been abuur la sameeyay loona weeyay wax cadeyn loona waay wax cadeyna marag iyo marxaati ah sidaas daraadeed ayaa waxa dhex martay beesha reer Hagar beesha Axmed Garaad iyo Bahar Same kulamo badan oo dhamaantood wax ka socon waayeen beesha Bahar Same dhankooda beesha Bahar Same ay ka socon waayeen kulamadaasi odayaasha labada beelood waxay isugu yimaadeen tuulada kala bayd waxa la waayay wax cadeyna sababtii ninkaas loo haystay isla waqtigaas ayaa odayaasha beesha reer Hagar lagu ballamay magaalada Laascaanood waxaana joogeen muddo 26 maalmood waxa arrinkaas kala hadla aysan helin muddo 26 maalmood labo markii xigtay waxa ay odayaasha labada beelood isugu yimaadeen tuulada Saxdheer markay odayaashu wada hadleen waxa hadalkii la wareegay Garaad Jaamac Garaad Cali wuxuu qabtay garaadku guddi dhexdhexaad ah oo isugu jira qayaad barkad iyo ugaasyo guddigii waxa ay go'aamiyeen in beesha Bahar Same ay keenaan Farxaan Maxamed Xasan Yare kuna soo wareejiyaan Garaad Jaamac Garaad Cali labo in beesha reer Hagar ku noqdaan deegaanadoodii oo ay ka warsugaan garaadka beesha reer Hagar way ku soo noqdeen deegaanadoodii saddex markii xigtay waxa ay odayaasha labada beelood isugu yimaadeen magaalada Laascaanood waxa ayna isla qaateen odayaashu in shariicada islaamka lagu kala baxo afar xaaladda oo halka marasa hadda halka taagan ayaa waxa ninkii Farxaan jeelka kala baxay beesha ku dacweysay ee reer Naaleeye waxaana gacantiisa kula baxay Ali Axmed Shire shan markii xigtay waxa la isugu yimid maxkamadda Hargeysa waxa goobjoog ka ahaa odayaasha saddex geesooda reer Hagar Bahar Same iyo Barkad maxkamaddu waxa ay weyday wax marag ah oo kiiskaas quseeya waxyaabaha lagu wada hadlay oo ahaa in cadayn la qaadan karo keenaan oo ay waayeen beesha Bahar Same in ay wax dhaarsadaan oo ay diideen in ay dhaartaan oo ay diideen afar in Farxaan oo nool dhex u dhiibaan inkana waxaan leeyahay Caaqil Cabdi Jaamac Aadan oo inoo faahfaahiya arrintaas laga hadlay ninka xogta laga qorayay aanu aha waxaan xusuusnahay oo imanka aan ku daro oo inta ka baxsanna waxaan garanayaa qaybta falgaransiyaha marka uu dhaco halka uu ka bilowdaa
waxa weeye qabashada ninka marxuumka dhintay qabashadiisa iyo sida qaabku u soo socday sidii kale waa sida loo sheegay. marxuumka dhintay waxaa gurigiisa kala baxay cali axmed shire oo ciidanka garbihiisa ahi ayaan ahayn ciidan Somaliland, ciidan reerna la yaabaa isagoo wata oo ama 6 ama 7 yu Farxaan gurigiisa ugu dhacay, wuu ka soo qabsaday jeelkana sidaasuu ku geeyay, sidaasuu ku dilay sida uu ku dilayna waa sida ilaa talaabada hore laga soo qaaday horta intaas ahayd. warbixinta kalena sidii loo sheegay bay taasi waa intaas oo marxuumkii baan ku darayaa faahfaahintiisa. inta kale aan gudbayaa waxa weeye Farxaan Allah u naxariisto waa dhintay, waa marxuum dhintay. taladu dadka maanta nool bay u taallaa. waxaan leeyahay dadka ay u taallaa beel qurana maaha, kuwa iyaga hawshoon jiray keliyana maaha, ehelkiisu saaka waa dhulbahanta oo dhan. waayo wixii xumaadaa ehel bay leeyihiin, waxa xumaan doonaana ehel bay leeyihiin oo waa laga hortag bay leeyihiin. wixii dhacaana ehel bay leeyihiinoo in la saxo eheladoodii saxdo bay xaq u leeyihiin. waxaanu u baaqaynaa dhulbahante, beesha Baharsam iyo beesha Axmed Garaad waxbaa dhex maray. ninkaa xaqdarrada lagu dilay, xoogga lagu haystay, lagu dilay, shaarka loo gashaday ee shisheeyaha lagu dilay, laysu diiday xaajadiisii. waxaan leenahay dhulbahanta inuu soo farageliyo yaanu anagu leenahay. marxaladkiisina waanu ka sheekayn cid gaarsiisa xubinta ay leedahay, xubintaasoo ah shareecada maxamediya wixii ay ka qabto ninkaa dilkiisa. marka baaritaan la sameeyo la wada hadlo waxa aanu tirsanayna la derso loo gondadigo. Farxaan in la waafajiyo shareecada maxamediya, sidaasaanu dhulbahante marti ugu nahay, sidaasaanu baaqa ugu gudbinaynaa. waxaanu leenahay hanaga daahina, waxaanu leenahay noo soo dadaala walaalayaal. hawsha aanu martida idinka nahay waa taa. caaqil waxaan rabaa inaan laba su'aalood ku weydiiyo. Allah u naxariistay saa sheegtay Farxaan waa dhintay. dad badani waxay leeyihiin Farxaan 10 sano xirnaa, 10 sanadood beeshu uma gurman, uma kicin. beesha kale aad walaalaha tiina aad sheegtay baaq u dirsana lama yeedan kulmin. ta kale waxa weeye hadda dil waa dhacay, Farxaan jeel buu ku dhintay, jeelka Somaliland buu ku dhintay, iyaga gacanta u geystay. maxaad hadda xala oo sidaa sheegtay intaasoo dhan maxaad uga amusteen loo hadli waayay oo wax loo qan waayay laftiina taas meelaan u karin caaqil loo hartay. labada su'aalood ay saaran aad su'aashay waxa weeye mid maraaxiisheedii oo dhan waxa lagaga sheekeeyay warqadda warbixintay ahayd. inta goobooda aan ku kulannay, sidaan u wada xaajoonay, sidaan garanaysaa wixii wax u suuroobi waayeen inaanu dhankooda mar walba culays ka tirsanaynay iyo garxumo inaanu tirsanaynay. halkaasay ku cadda. haddii hadda lagu dilayna dee garxumadii in baa lagu dilay iyo cadaalad la'aantii nalagala cararayay cadowga loo geystay. taadi su'aashay labaadna dee inay taa ahayd baan u malaynayaa. mar kasta waanu ka hadlaynay, mar kastaanu daba joognay, 5 qodob baanu kuu gaarsiinay in ay garxumo ahayd. waxa aanu annana daba joognayna gar bay ahayd. tolkayana waana xumaynay, ninkana xumaynayaa nala ka qaban waay. waxaan cambaaraynaynaa oo si buuxda u cambaaraynaynaa anagoo ah beelweynta Axmed Garaad dilkii loo geystay Farxaan Maxamed Xasan Yare. dilkaas oo ay fuliyeen maamulka Somaliland iyo dad kii markii horeba Maxamed Farxaan kiis gareeyay gurigiisa kala baxay, jeelka geeyay, ku muddo ayay 10 sanadood
farxaan 10 sanadood uu xidhnaa ma bixinin wax qiraalo ah markhaati wax ku cadeeyana lama helin sana baadil ku xidhnaa baadilkii uu ku xidhnaana markii dambe lagu dilay waxaan aaminsanahay inuu dilka farxaan ahaa dil siyaasadeed aanu waxba dilin ninka lagu eedeeyay inuu dilayna inaanu dilin loogu aaray ninkii isagu uu aari lahaa baanu aaminsanahay dilkaasina uu dil siyaasadeed ahaa dantii lahaana laga gaaray ayaanu aaminsanahay dilkaa foosha fawaaxishka ah ee shareecada islaamka iyo dhaqankeena wanaagsan midna aan ku sugnayn ciddii geysatay waa ku cambaaraynaynaa waxaan u gudbayaa qodobka yagan ah baaqa gobolada sool sanaag waxgaradka gobolada sool sanaag iyo cayn isimada culimadiinka mingarboodka qurbajoogta waxaanu halkan ugu gudbinaynaa baaq nabadgeliyo baaqaas oo ah waxaanu halkan ku fadhinaa beeshii axmed garaad culimadeedii iyo cuqaasheedii iyo waxgaradkeedii hawshanina waa naga baaxad ballaaran tahay kuna filin waxaanu rabnaa dadka ehelka noo ah ee gobolada sool sanaag iyo cayn ee isimadu ugu horeeyaan culimadiinta cuqaasha mingarboodka qurbajoogta inay arrintan soo farageliyaan falkii foosha xumaa ee dilka ahaa ee ka dhacay ee madheera lagu dilay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo farxaan maxamed xasan yare marka waxgaradka axmed garaad waxa weeyaan marka koowaad hawsha dhammaan waa ka tacsiyeynayaa allah ya raxma marxuumka dhintay waxaan kale oo baaqan ku gaadhsiinaynaa inaanu ku cadaynayna inaanu erganahay oo ergada aanu nahay bahrarsame waxaanu caddaynaynaa marxuumkaas ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya in sifo aan sharci ahayn gurigiisa loogala baxay waxaanu caddaynaynaa in 8 sano xabsi lagu haystay oo sifo aan sharci ahayn loo haystay waxaanu caddaynaynaa in 8 sano la jirgaraacayay waxaanu caddaynaynaa in 8 markii dambena dulmi lagu dilay waxgaradka markaa axmed garaad ergabaanu nahdo bahararsabaanu ergawnahay waxgaradka dhulbaante ee gobolada sool iyo sanaag iyo cayn meel ay joogaanba waxaanu ka codsanayna xaajada fadhiga looga kaco inaan la weyday isugu yimi shirkaas arrin dhacday oo musaaco noqotay oo dadka intiisa badan la ogyahay oo lagu fuliyey farxaan maxamed xasan oo lagu dilay madheero oo xaqdarra lagu dilay markhaatina uusan ku caddayn qiraal isagu uusan qiran labadaa midna iyada oo aan laga hayn oo caddayn laga hayn baa la dilay muddo badanna waxgaradka axmed garaad iyo baharsame ay ka wada hadlayeen inaanu ninkaa laga wada xaajoodo xagga baharsame ka sii hoobi weydi ninkaa cali shire la yidhaahdo iyo xaajada ilaa maanta gurigiisa kala baxay ilaa maantuu dilayay aftuub ku watay erga kale iyo waxgarad kale oo baharsamana kamay qaban baharsamada guurna kama qaban kifidiisuna kama qaban ilaa kibriilciisa kama qaban waxaanu leenahay ninka xaqdaraa lagu dila ilaaha u naxariistee waxaa ku heshiiyey ninkaa cali shire ee ninkaa markii horeba gurigiisa ka kaxaysay iyo maamulka soomaaliland baa xaqdarra ka heshiiyey siyaasad baa lagu dilay xaqdaraa lagu dilay sharciga islaamka lama waafajin waxaanu leenahay waxaanu ninkaa u sheeganaynaa beesha baharsame waxaanu ku sheeganaynaa sharciga islaamka waxaanu xaajada musaacada uga dhigaynaa in dhulbahaantaanu ergownahay hadduu yahay garaad hadduu yahay caaqil hadduu yahay culimo hadduu yahay waxgarad xaajadu marka ay deeyar tahay waxaa laga yaabaa dadku inuusan u gurman laakiin marka ay xumaato waa loo gurmada dhulbahanto waxaan leenahay xaajada baanu erga ka nahay annagoo ah waxgaradkii iyo uqaashii axmed garaad waxaanu baaq halkan uga jeedinaynaa 2 bointi bointiga koobaad wuxuu khuseeyaa waxgaradka dhulbahante in hawshaa loo kaco oo lagu kala agoogto reerka tolka aanu nahay maxamed garaad taas waa qodobka labaadna waxa weeye
waa baaq ku socda beesha maxamed garaad si kastaba ha u sii kala jafisanaatee xigaalooy macallinow wixii aad fashada fashay weli faatakum war waxaynu leenahay xaajada inta dambe farxaan borosayska la soo mariyey mid sharci oo islaam iyo mid kiristan toona maaha macaamilka kiristanka ma soo galo sidaas oo kale qof suu guri ugu jiray xabad la iskaga furo waxaan leenahay xigaalooy xaajadu yeedinka xumaan oo fadhiga ka kaca oo khasaare waa dhici jiray ayaynan asaayadan bareebin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxgaradkii ogaashii culimmadii aqoon-yahankii axmed garaad wuxuuna go-aansaday 3 qodob qodobka koowaad annagaa iskaga warramayna haddaanu nahay axmed garaad dilkii loo geystay allaha u naxariistay farxaan maxamed xasan yare waxaanu qabnaa inuu ahaa dil xaqdarro ah waxaanu qabnaa inaan isna aanu waxba qiran markhaatina waxba ku furin maxkamadna wax ku xukumin sidaa darteed waxaanu leenahay ninkaas xaqdarro ku dhintay isagoo xaqdarro ku dhintay waxaanu ka wadanaa nabadgelyo waxaanu ka wadanaa xaajo waxaan annaka warkayagu markaanu axmed garaad nahay qodobkaasaanu taaganahay qodobka labaad waxa weeye waxaanu dhulbahante ogeysiinaynaa mowqifkeedu markuu sidaa yahay inaanu baharsama ergownahay inay ninka nagala xaajooto haddii uu xaq kuu dhintayna ayna barto suu xaq ugu dhintay haddii kalena annaku aanu caddayno inaanu xaq ku dhiman inay ninkaa nagala xaajaysato baanu baharsama ka doonaynaa dhulbahantana waxaanu u sheegaynaa hawshaas maraaxiil badan bay soo martay gunteedii dilkaasuu noqday in dilkaa xaqdarradii ka dhacday guntiisii noqotay waxaanu idinka codsanaynaa in badan baa erge loogu tegay baharsame waa laysku afgaran waayey maantana ergaanu u nahay in aan laysku kaayo mudxin annakiyo baharsame yaanu isimada dhulbahante waxgaradka dhulbahante culimmada dhulbahante sidaasaanu ka codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi lagu dilay dir arxandarro ah oo aan shareecada waafaqsanayn ninka dilayna waad garanaysaan oo waa axmed cali axmed shire isagoo u adeegsaday cadow soo jireena sida la sheegay waxaanu ku dilayna waa xaqdarro markaa baaq waxaan u diraynaa ummadda islaamka dhammaanba amase ummadda dhulbahantaba in ninka xaashadiisa beesha baharsame ay soo dhaweyso maxaa yeelay dee dilkiisa iyagoo baa ku eedaysan oo maanta aan doonayn aan kala hadalno marka inay soo dhaweyso si wada xaajooga si kastoo looga hadlay markii hore arrintaas si wanaagsan oo taliimaa kama yeelin laakiin maanta waxaan codsanaynaa inay soo dhaweeyaan ninkaa dilkiisa ay dileen inay si taliimaa usoo dhaweeyaan saasaan codsanaynaa inay u siteen ugu weynayde ay axmed garaad iyo baharsame dilkaa ku dhexdhexaadiyaan oo ku dhex fadhiistaan oo guddi u magacaabaan axmed garaad iyo baharsame hawshaa la eegta oo u dhammaysa intaa waxaanu jeedinayaa dhulbahanta baaqa labaadna waxaanu jeedinayaa baharsame waxaan leeyahay walaalayaal sidaa aanu sheegnay waxaanu idiin nahay ergo dilkaasina waa sharci darro waa cadaalad darro xaqna ma aha noo soo fadhiista sharciga maxamediya aan noogu soo fadhiista ee ilaahay jideeyey saasaanu aan raalli ku nahay wabilaahi towfiiq waa cali cusmaan jacala dhagjar wararka iyo raadiyaha telefishinka SBC magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka Cayn